السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ku soo kordhin doonaa kanaalkeena qayb cusub oo aan ku soo gudbin doono casharro amba koorasyo kuwaas oo la xiriira IT-ga amba information technology waxa loo yaqaano. Kooraskeena horeeya amba taxanaheena horeeyana waxaanu ka bilaabi doonaa insha Allah tacaala casharrada Photoshop-ka kuwaas oo ku soo bandhigi doono siyaabo kala duwan iyo qaabab kala duwan oo ay ku iman karaan iyo waxa aad uga baahan kartaba. Isla markaana taxanaheena waxaanu ka soo bilaabi doonaa xagga ugu hooseysa si qof kasta uu la jaan qaadi karo hadduu yahay qof uu maanta ku cusub yahay programkan iyo kooraskaniba iyo haddii uu yahay qof hore wax uga yaqaanay oo doonaya inuu aqoontiisa korsadaba. Haddaba barnaamijkan aynu baran doono waxaa dhahdaa magaciisa Adobe Photoshop 2020 oo waxa weeyaan feershanadii ugu dambeeyay ee ay soo saarto shirkadda Adobe. Intaa kadib barnaamijkan soo kicin doonaa bal waxaanu eegno haddaba feature-diisa iyo qaabka ay u egyihiinba. waka haddaba barnaamijku markuu soo kaco sidaas uu eegyahay dashboardkiisuna waa nooca laakiin aniga markii hore barnaamijku igu jiray waxyaabihii hore ku sameeyay barta shaashada ka muuqda saad arkaysaan adigu markaad soo download garaysteed kala soo degtay internetka xagga aad ku arkayso sawirada iyo waxayna yaalaan waxba ku arkamaysid ee shaashadaas madow bay ahaanaysaa laakiin xagga create iyo open ay ku qoran tahay oo kaliya tuma soo haraysa waayahay haddaba imka open baan odhanaynaa oo computerkeena kala soo dhex baxaynaa sawir si aan u edit gareyno oo aan isku faahno casharka koobaad ee maanta. haddaba waa ka inoo soo kacay sawirkii aan soo furanay imika waxaynu guda geli doonaa maanta casharkeena koobaad kaasoo aynu kusoo qaadan doono tooliska iyo magacyadooda iyo waxay kala qabtaanba. ka koobaad ee u sareeya magaciisa waxaa la dhahdaa move tool oo waa ka dhanka ku qoran markaad saa soo qabato waxaanu ka caawinayaa inaad sawirkaaga dhaqaajiso oo waxaa la dhahdaa magaciisa move tool. ka kale ku xiga waxaa la dhahdaa selection toolski weeyaan intaniba oo ka waxaa la dhahdaa magaciisa rectangular marquee tool oo waxaad kusoo furan kartaa keyboardkaaga adoo taabta imika markaad saa yiraahdo goob uu soo saaray maaragta goobadaas uu select gareeyay imika oo selection toolski weeyaan. haddaan doonayo inaan ka qaado waxaad taabanaysaa Ctrl+B oo ka imika selectionkii baabee maaragta keyboardkaaga aad ka taabanaysaa. mar labaad haddaynu ku soo noqono selection toolkaas waxa ku sii jira aduu dhowr qaab ka koobaad oo afar geesood haddaad doonayso amba lady waxa Soomaali lagu dhahdo lady haddaad doonayso inuu kuugu ekaado selectionkaagu amba goobado kale sidii line oo kale kuwaasaad kolba isticmaalaysaa. waayahay haddaba tan waxaa la dhahdaa lasso tool waxaa loo isticmaalaa markaad mouse-kaaga doonayso inaad raacraaciso selectionka tusaale ahaan eeg balimka sidaas oo kale markaad sidaas oo kale aad leedahay mouse-kaaga raacraacinayso gidaarada ee aad gacantaada adu ku selection garaynayso ayaad isticmaalaysaa oo markaad sidaas oo kale sameynayso kolba adu mouse-kaaga markaad doonayso inaad ku select garayso ayaad isticmaalaysaa. tan labaadna waxaa la dhahdaa polygamy iyadu way ka duwan tahay taa hore oo iyada kan saas la odhanayaa waa la soo jiidayaa eeg balsan yiraahday marka kan isaga mouse-ka markaad kolba taabato aad click siiso ay ka haraysa xabadaas marka dambe doonayso inaad unu selection ku saarano waayo haddii kale mouse-kaagu raacaya maaragta marka doonayso inuu selection ku saarano waxaad siinaysaa enter keyboard-kaaga isaga marka automatic isku saaraya selectionka. qaybtan kale ku xigta waxaa la dhahdaa objective selection oo imka kaas koobaad markaan soo qaadano markaan doonayno inaan select garayno inta aad doonayso inaad select garayso dhanba ayaad wada marinaysaa objective toolka marka isaga ku select garanaya marka inaha yaryareed arkayso inaanu selectionkii saarin adiga saarayo waxaad soo qaadanaysaa tusaale ahaan kan oo kale oo aad sidaas u marinaysaa markaad mariso isaga automatic isaguna isku saaraya intaas selectionka adiga arkaya imka isla isaga la fahantiisana waxaa la dhahdaa quick selection tool baa la dhahdaa oo meeshaad mariso ayuu selection saaraya. waayahay han ka gudubno kan waxaa la dhahdaa crop tool baa la dhahdaa oo markaad tusaale ahaan aad jarjarayso kale waxaad doonaysaa inaad cirkaas aad iska qariso saas ma tiraahday xagga yar baad tagta saaraysaa imika intii cirka ahayd way naga baabaaday han soo celino Ctrl+Z baan taabanaynaa qaybtiisan labaadna waxa weeyaan waa cropkii oo la jiidayo isaga xaggii mar balaan ku tusay shabag buu sameeyay maaragta shabagaasaad kolna dhanka u soo jiidaysaa kolna xagga aduu inta doonayso inaad soo reebato ayaad la soo haraysaa
saasaad odhan kartaa oo xaggaasaad saa odhan kartaa inta yareed doonayso. Haddaad doonayso inaad geedkaasoo keliya la soo hadha xataa saasaad odhanaysaa oo intaa geedka uu saaran yahay oo keliyata ayuunbaad calaamadinaysaa. haddaan saxda saaro imika intaa geedka oo keliyata mayna soo hadhayso kaa ballaadhiyey aad arkaysid. Control plus setting kaga noqono. waayahay qaybtan kalena waxaa la idhaahdaa frame tool oo waxaad soo qaadanaysaa iyada markaa sawirkaagii hore ayaad ku dul sameynaysaa. ma ku dul samaysay intaa aad ku dul samaysay oo keliya tunbaa sawirkaaga kasoo muuqanaysa, intii kale hareeraha waa laga wada jarayaa. ku xigtana waxaa la idhahdaa airdrop tool oo waxaa loo isticmaalaa kalarada markaad doonaysa inaad soo qaadato. tusaale ahaan eeg imika wataa shaxdeeni kalarada ma garanaysaa. markaad doonaysa inaad sawir inaad midab dhankaasoo kale kasoo qaadato ayaad saa u saaraysaa. hadaad doonaysa cagaarka akhtarkaas saa u dul dhigaysaa. huruud imika dhankaas naga noqotay maaragta dhankaas akhtarkii midabka doonaysa inaad soo qaadato ayaad dul saaraysaa. markaa isaga automatically ahaan midabkii u qaadanaya. imika okay haddaan idhaahno kaas aan soo qaadano kaana isagana waxaa la brush tool oo waxaa la isticmaalaa markaad ku kala dhaynayso maxaa haday sawirada inta badan. oo imika haddaan saan idhaahno midabkii akhtarkaa buu wada qaadanaya. sawirkeenu naga baabee maaragta. haddaba si aan sawirkeenu usoo celino waxaan taabanaa control z. intaas kadib haddaba maanta xaggaasaan ku joojin doonaa muuqaalkeena. guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena ayaanu soo gaadhnay. fadlan haddii uu muuqaalku cajabiyo like gare, subscribe tana saar si uu muuqaalo badan kuu soo gaadhaan. una sheer gare asxaabtaada ciddaad doonayso inay ka faa'iidaysato. intaas iyo goorta aynu muuqaal dambe ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.